dhaqan curdun ayaa ka jira Soomaaliya haddii aad tahay xilhaye geeriyooday saacad kadib shaacinta meedkaada khudbadaha bilaabanaya waxaa ka mid ah inaanay waxba joogsan doonin adiga dartaa 1 2 iyo 3 ma ahan kuwa sidaa oranaya waxaana ku jira kuwii aad ugu abaalka naxariista iyo dhawaanshaha badnayd arxan la'aanta waxaa ka mid ah doodda miiska saaran ee la xiriirta cidda ku bedeli doonta taas oo soo ifbixi karta inta aanba ilka lagu geyn kelmadaha looma istaagayo waxba ma baaqan doonaan iyo looma joojin doono waxay qayb ka noqdeen nolosha Soomaalida waxay ifinayaan ahaanshaha bulsho aanay dadku qiimo ugu fadhin waxay meesha ka saaraysaa macnihii uu lahaa marxuumku intii uusan dhiman waxaase ugu mug weyn in mararka qaar la doonayo in wax lagu qariyo markii uu masuulku gacan binaadan sababsaday qolyaha isticmaala kelmadahan waxay sheegaan inay fariin u tahay ciddii dilka geysatay iyagoo ka dhigaya in ujeedku dilku yahay shaqo curyaamin laakiin mararka qaar waxaa jira tuhum badan oo la xiriira in kuwa kelmadahaasi isticmaala ay wax qarinayaan ama ay wax doon yihiin muqdisho waxay maanta aastay maayarkeedii cabdiraxmaan cumar cismaan wuxuu 10 sano la soo dhaafay adeega u ahaa bulshada Soomaalida isagoo doorar kala duwan matalay miiskiisii shaqada ayaa lagu beegsaday 24kii bishii la soo dhaafay binaadamku qiimo ayuu leeyahay waana muhiim in loo joogsado qofkii si dulmi ah loo dilo waa in la iska wareystaa sababta ay tani ku dhacday la baaraa dad ay xilal iyo xasaanad ku waayaan dadna loo ciqaabaa oo ummadda aan la qiimo tirin tan iyo 2009kii madax badan ayaa lagu dilay Soomaaliya waxaa ku jiray wasiiro iyo xildhibaano maamuladii jiray waxay sheegeen in la baarayo laakiin shacabka looma soo bandhigin natiijadii baarista ilaa hadda qaarkood si sax ah looma garanayo cidda dishay waxaa la waafajiyey jumladii ahayd looma joojinayo qof dhintay shaqooyinkooda ayaa sii socday waxaana xafiisyada laga fogeeyey sawirradoodii iyo saxiixyadoodii waxaana la joojiyey baaristii la xiriirtay sababihii ay u dhinteen marka la joogo Soomaaliya al-shabaab waa khatar amni oo magac leh balse waxaa jira walaac ay bulshada Soomaalidu ka qabto inay howlaha qaar fuliyaan ama ay fududeeyaan gacmo kale oo noqon kara Soomaali ama ajaanib haddaba geerida Yariisow ma loo joojin doonaa ma noqon doonaa masuulkii ugu horreeyay oo si buuxda arrintiisa loo dul istaago qoyskiisu cadaalad helaan masuul loo hiloobo oo xusuustiisa lagu dhaato mise waxaa la waafajin doonaa jumladihii danleyda maxay kula tahay adiga